Xildhibaan Mustafe Maxamuud Qodax oo ka mid ah Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhowaan soo gaaray magaalada Doha ayaa waxaa munaasabad soo dhaweyn u qabtay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qadar waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya, guddiga jaaliyadda, siyaasiyiin iyo waxgarad kale. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Cali Askar iyo waxgarad kulanka ka hadlay ayaa Xildhibaan Mustafe Maxamuud Qodax uga warbixiyay xaaladda Soomaalida ku dhaqan dalka Qadar waxayna siyaasiyiinta ku booriyeen in dalka horay loo wado. waxaan leenahay qof kastoo Soomaaliya waxa mas'uul ka yahay marka ugu horeysa naftiisa, marka labaad iyo ummadiisa, diintiisa, dadnimadiisa waa ka mas'uul. xildhibaan waan ku soo dhaweynaynaa marka ugu horeysa magaalada Doha dad midaysan oo jaaliyad midaysan baa joogta insha Allah. ilaahay idinkiina sii waari doonta wax badan oo wanaagsan ummadda u qaban doonta, xaqaana talo wanaagsan ku beerin doonta. waxaan yaro ma aan farriina ku farayaa dadka mas'uuliyiinta gacanta ku haya Soomaaliyeed meesha doonaha joogay. waxaan leeyahay ninka mas'uulka ee Soomaaliyeed ee siyaasiga waa inuu koraa, waa inuu maskaxda ka koraa, waa inuu ka koraa maxaan ku dhahay macluumaadka caalamka waxa ka dhacay, surcada caalamku ku socdo waa inuu ka koraa. waxaan u baahanahay madax dheeraynaysa oo khayrka ku dheeraynaysa wax. Mukhtaar Cali Yuusuf, qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Qadar, sidoo kalena ah siyahayaha xilka safiirka, ayaa hadalka ku soo dhaweeyay Xildhibaan Mustafe Maxamuud Qodax. xildhibaanka ayaa ugu horeyn ka hadlay wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Khayre waxa weeyaan taariikhda marka ilaa Cabdullaahi Yuusuf dawladdiisa laga soo bilaabo labada nin ee ugu fiican xagga isfahanka oo runtii mudan in lala shaqeeyo weeyaan. xaqiiqatan waa sidaa. wixii kale ee ka qaldamaya waa bini'aadan hala sheego, laakiin labada nin waxa weeye laba nin oo isfahansan, isla jaan qaaday oo Farmaajo wuxuu ku guuleystay inuu ra'iisul wasaare firfircoon ay isna fahmi karaan inuu magacaabo baarlamaankuna waa saxiix. waxa kale oo waliba Farmaajo ku guuleystay oo runtii ay tahay in loo qiro oo gobonimo ah. hadiya jeer madaxda Soomaalidu marka ay ilaa wasiirada asaasa weligood dhaqanka wali ahaan jireen waxa la yiraahdaa decentralization iyo shaqada in la qaybiyo ma yaqaanaan qofka shaqadiisa uma daayaane madaxweynuhu intuu wasiir dhiso haddana shaqada halkan ku haysta inta badan dhaqanka Soomaalidu waa iska caynka jananka ninkaah madaxda ka hooseysa ma ixtiraamo shaqadooda uma daayee ilaa taliye ugu doonaa inuu u dhaafo dhaqankaas inta badan lahaan jiray. Farmaajo dhaqanka ma laha oo dad badan baa waxay ku canaantaan ma ku yiraahdaan ilaa wixii aynu ku barbaaray siyaasadii baa la doonayaa waxaynu ku barbaaray oo 3 sanadood aynu naqaanay kaliya talismadaas aynu naqaanay. Farmaajo dad baa imika ku canaanta ra'iisul wasaarahaaga ayaa shaqadii faraha uga qaaday uu ku saxan yahay. siyaasadaas siyaasad qaldan maaha. hadduu ra'iisul wasaaruhu shaqaynayo in loo daayo shaqada fulinta ee wasiiradiisa inuu isagu dabagalo la xisaabtamo oo madaxweynuhu kaalintii odaynimada dalka qaato, arrintaas waa muhiim. Farmaajo arrintaas horta qaatay. xildhibaanka oo hadalkaasi wata ayaa ka hadlay mowqifka dawladda Soomaaliya ay ka qaadatay xiisadda u dhaxaysa dalalka Khaliijka waxa uu ka dhigan yahay. mowqifka Soomaaliya ka qaadatay siyaasadda bariga dhexe iyo isqabsigii barigii dhawato waxa weeyaan qofka dhinacu doonaha iska taagay aqliyad buu ku dhisnaa saliima. ilaahayna uu ina waafajiyay baa la oran karaa oo haddaan de ilaahay talada mararka qaar ku waafajin lama guuleysto. ilaahayna uu waafajiyay madaxda dalka go'aankii saxda ahaa right decision la oran karaa way qaateen runtii waana shaqaysay oo idinka imka arkaya. ugu dambeyntii Xildhibaan Mustafe Maxamuud Qodax oo ka mid ah mudanayaasha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dardaaran u soo jeediyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qadar, wuxuuna xusay in dawladda Qadar ay hadda mashaariic horumarineed ka wado gudaha Soomaaliya. halkan markaan idinku nimaadno xog baa la idinka rabaa. waxa la idinka rabaa mid ganacsi, waxa la idinka rabaa mid waxbarasho oo sidaynu wax u wadaagi karno dalkana, waxa la idinka rabaa mid siyaasadeed oo lagu horumarin karo xiriirka labada dal iyo Kenya khaasatan. waayo maanta inaga aad Qadar ugu baahan runtii waana dad noo fiican. mashaariic bay imika ka wadaan Soomaaliya ay u badan yihiin wadooyin waana bilow imika ay bilow yihiin oo waxa laga yaabaa inay runtii inay sii horumariyaan. waxaanay wax badan ku xidhnaan doonaan
hadba kaalinta inagu qaadanay siyaasadeed. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish magaalada Doha.